Hello everyone, waa idin salaamay. Magacaygu waa Qibos University. Haddii channelka ku cusub tahay, subscribe iyo share iyo like waa noo dhiirigelin mahadsanid. Waxaan maanta isla eegaynaa weekly recap baan isla eegaynaa trade-yadii baxay iyo bias-keenii suuqan iyo isla eegaynaa. Suuqa bias-ku soo analyst-iga waxaan dhihi karin waa baran kartaa laakiin waa qiyaasi kartaa. Marka laba midun ka raadi bias OP ama fair value gap labadaa midun ka raadi still OP xaggan meelahan OP amba halkan fair value gap OP-gan ma jirta ka labadaas weeye. Marka new bias-keena kuwa isla eegaynaa bal bigger picture-kan kasoo bilaabaynaa waa monthly. Monthly wuxuu joogaa meel fair value gap buu joogaa oo up buu inoo sheegayaa. Up buu isagu inoo sheegayaa halkan waxaa ku jira fair value gap halkana ku jira oo macquul in dhown yahay haddana fair value gap awood badan oo suuqa jahaada u kaxaynaya waa buy. Weekly-ga iyo daily-gana wax naga tusaya dhown buu naga tusayaa. Marka dhinac kasta waa la dhiil garaynaynaa oo dee dhinacun ma sugino. Kow wuxuu joogaa suuq meel fair value gap uu ka yimi iyo meel OP wani kulanba suuq meel OP ku soconaya. Haddii fair value gap-kan lagu ixtiraami maayo OP baa lagu ixtiraamaya ma garad mid wada iska ixtiraam OP ama fair value gap baa lagu ixtiraamaya. Marka suuqu wuxuu ka yimi meesha fair value gap-ka buu ka yimi oo iyo meesha OP-ga meel discount soo premium soo ka yimi oo ilaa selse liquidity la qaadayo ma garad sidoo kalena wuxuu joogay weekly signalkan wuxuu noogu sameeyay lugteer weekly fair value gap inoo sameeyay weekly fair value gap inoo sameeyay way tan laga soo gareeyay. Daily-gana oo weekly marka waa sell daily-gana iyadana eegno inoo dhili gareeyo. Wani ku sheegay suuqa jooga meel fair value gap oo ka baxay in suuqu wuxuu qaaday week-gan ka horeeyay buu qaaday oo calaamad reversal ah. Waynigii lahaa USD markaan soo diray lahaa week-gaas la qaaday in previous week high in low-ga la qaaday wani USD lahaa oo OP ka kacay maxaa la dhahaa DXY oo meel OP joogtay isniintii waa tii la yimi salaasadii buy arbacadii buy jimcihii khamiistii oo kinii soo baxay FP-ga soo baxay wuxuu soo qaaday laba siibuu soo daatay kow wuxuu tagay meel OP oo fair value meel OP uu tagay oo premium ku beegan haddana wuxuu qaaday wuxuu raaciyay haddana weekly high wadana soo qaaday marka waa calaamad reversal ah. Marka in laysa shirkan la qaadan doonaya haddana action la sameeyo meel discount oo imika suuqa laga keenay oo hagan doonaya aan uga buy gareeyo lacagaha kale USD carry ah eurodana idana waa sal. Marka ra'yidan eurodana isla eegno eurodana kow waxa la joogay wani soo diriyeen lahaa wani weekly low-ga waa la qaadayaa ilaashada fadhil gareeya weekly low arbacadii ka soo maray khamiistii baa la yimi khamiistii waa laga buy gareey jimcihina laga buy gareey ilaa weekly high-ga ilaa monthly high macnaha naga xiga oo iyadana waxa joogtay weekly fair value gap bay joogtay marka weekly waxa ka timid fair value gap iyo OP-gaas ka timid reaction ma ka baxay meesha waxa la keenay suuqa weekly value gap weekly low buu qaaday marka isla eegnay tiradiiguna baxay oo trading recap aan sameynayna jimcihii waxa baxay waa kan intrigi baxay anuu salkaman soo raacay 20 BBC sababtoo ah meelahan buu OP iga siiyay oo ina daily high-ga la qaadiyo waxaan doonayay oo sell baan doonayay oo bias-kii jihada guud buu waan kasoo horjeestay haddana profit uu siiyay haddana break-kan buu ku dhacay oo selka aniga marka 20 pip la siiyo selkan soo durkiya button-kan aan keenaa noocan kala xira marka kow trader wuxuu ka yimi meel OP 15 minute joogay kow wuxuu sameeyay oo waa intriga saan kusoo qaatay laakiin intriga saxda wuxuu ahaa wuxuu joogay meel fair value gap uu yimi oo 15 minute oo meelan ku jirtay then waxa dhacay hulsi kala ka raasatay
kow waxa lagu qaaday London Low baa lagu qaaday kow London Low baa lagu qaaday haddii dee London Low Asian Low baa lagu qaaday haddii Asian Low lagu qaadana waa asagana waa adigoo meel haystay biaskaagu bay oo dan Asian Low lagu sii qaaday oo dan meel fair value lagu tirsaday dee traderkaasi waa plus sababtoo ah biaskaaga buu la socdaa sababtoo weekly low baa maca lagu qaaday waxaasoo dhan baa isku raacay marka traderkan A plus baa inaad ka cabsata maahan inaad ka shaheed qofkii dee ICT ku trader garanaya soddonka pip quickly iska si dhaqso leh maca newska jeedadii ku yaalay magarate marka halkan muu shift kaaga sameeyey fair value gaabkan weyn buu kugu soo noqday trader xagaas lagaaga furay SR-kaagan swingka dibidiisa dhiganaysaa don't care duu ku baxo as okay waa 1% 3% bay faa'iidaysa marka traderka isaguna saas ku baxay kow waxa lagu siiyey trader baa lagu siiyey xijii lagu ritay afraad lama qaadayo waxaasoo dhan baa saaxiib isku raacay isaga traderka saasuu ku baxay oo waa traderkii baxay khamiistii jimcihii traderkii baxay weeye saasuu isagoo baxay khamiistii traderkii isaguna baxay baan isleegaynaa waa kan dadka qaar waxay sugayeen in loo qaado ay sugayeen Asian Low nin Asian Low iyo waxaan laguma tradergeeyo waa qodobadan ruleska bad waxa la eegaa weekly low ama prediction day low ama silsilan buy sell lagu qaaday imika wuxuu kuu soo qaaday buy sell-kan laakiin time and price dadka xukumayay haddana suuqa wuxuu sameeyey weekly low markii lagu qaaday saacadu samarisid sideedii barkii meelaha ku horreeyey haddana laakiin wuxuu yimi suuqu markuu furmay London ku ximi meel beriga blog u yimi 15 minna wadigan soo wada jeegtaan time and price ku xukumay waa taariikh waxba kaamay gelin dayn haddii Asian lagu qaadan basal buy sell-kan lagu qaadan la soo garanayo because waxaad ogtay suuqa jaadu socdo ogtay Soomaaliya haddii weekly low lagu qaaday weekly high-gana la soo qaaday oo ogtay Soomaaliya sidii jimcihii dhacday in ilaa 20 bib and 10 bibs baa laga yaabaa inuu ku jiro marka kow biris weekly baa lagu qaaday shift fair value ka bartan kaaga dhacay saddexdii lagu ritay 20 lagu qaaday break probe ugu soo noqday boom 1 2 3 xagaaga la dhiga wixii iyo 40 bib baxay isla khamiisna triga bayga soo saas ku baxay asleegno talaatadii iyo arbacadii asleegno talaata iyo arbacad jimca min 100 bib baxa guys idan taalo ogaada wax tir ma bixin talaatadii oo tan iyadana bay baa baxday sababtoo ah bay waxa ku baxday meeshan halkan meelan OB fair value baa ku jira dan shift fair value waa kan traderkan si live aan qaadanay oo halkan buu OB noo yaalay fair value kuma ka qaataano fair value kuma ka qaatay fair value ka siga furay 30 BBC 430 bib baxay traderkaas tusabade 430 bib buu ahaa 430 bib buu ahaa traderkaas 430 bib baxay trader shiftigii fair value wixii baa kan warintriga dadka adagtay waxa ku dhimana kaliya waa bias you don't need ma baahnid inaad simple baantay fair value maxaa la yidhaha biaskuna waa khibrad un wey marka guys wuxuu intaa la traderkana baygan wuxuu ku baxay inkastoo deetada suuqa dhownayd haddana bayga wuxuu ku baxay wixii taagnaa main point of the next 1 hour fair value meelahan ii taagnaa halkan baa liiga sameeyey shifti fair value gaabka yar baan ka qaatay 20 bibs bc dana brief un biga dhacay meelahaas wiisi adoo waxaan doonay iyo isagaa 20 bibs brief un biga dhacay kaasi suuqu dhinaca kastoo ku sigan la dhigi karaysa guys inta khayr baan